konton sano ayaa laga joogaa markii koox ka tirsan milatariga iyo booliiska ay Soomaaliya ka sameeyeen afgambi iyagoo soo afjara 9 sano oo waddanka ay soo hogaaminayeen dawlado hab dimuqraadi ah lagu soo doortay. haddaba intaynaan u gudagelin sidii xukunka uu gacanta ugu galay milatariga bal aynu eegna dawladihii dalka soo maray geedi socodkii dimuqraadiyadda iyo sidii dawladnimada lagu hantay. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu macallin ka yahay jaamacadda Minnesota waxaana uu ka mid yahay aqoon-yahanada ugu horreeya Soomaaliya. waxa uu qoray buug lagu magacaabo Africa's First Democrats ama dimuqraadiyiintii ugu horreeyay ee qaaradda Afrika. walaal waxa weeye waxay ku dhalatay dawladnimadu horta dad dhulkii Soomaalidu deganaan jireen waa la kala googooyay meel walba isticmaar baa qabsaday dadkii waxay noqdeen markaa dad aan addoon ahayn laakiinse laga adkaaday oon xuquuqdooda iyo dadnimadooda ka hadli karin. dareenkaasi ayaa keenay inay magaalada Muqdisho noqoto caasimadda ama xundurta dadka Soomaaliyeed isugu yimaadaan gaar ahaan wixii ka dambeeyay 45kii dadkii abaabulayay dhalinyar bay ahaayeen sida dadka Soomaalidu yaqaanaan waxayna ku dadaalayeen in dadka kala baahsan in dawladnimo hore u lahaan jirin isticmaalka ka horsow in la isku koono oy walaaloobaan oo ina u kala yaxan ka qaraabadood iyo kuwa kale dadkii masalayeen amuurtaas ama Cabdullaahi Ciise ha ahaado ama Maxamed Cabdullaahi Xasan oo ka horreeya ahaado ama Sheekh Bashiir oo reer Burco ha ahaado ama qowl ka ahaadaane waxay isku dayeen mabaadiida caynkaas inay ka dhabayaan ay ku dhaqmaan walaal. taas ayaa keentay isku soo hilowga Soomaaliyeed ee gobolada isticmaalku kala haystay ka kala yimid walaal. ma shaqaysay dawladdii hadday shaqaysay bal iga sheekee nidaamkii waxbarashada nidaamkii socodsiinta maamulka siduu waddanka uga hirgalay dawladdii aadan cadde. waxa weeye markii la isku yimid walaal aadan iyo dadkii u dhadhawaay la shaqaynayay waxay fahmeen laba arrimood bay fahmeen. inkastoo qaybta Talyaaniga uu haystay koonfurta ah 10 sannadood maahe 5 ilaa 6 sannadood tababar ay ku soo jireen gaar ahaan 56 markii Cabdullaahi Ciise loo qabtay inuu ra'iisul wasaaraha daakhiliga ah noqdo waxay isku dayeen halkaasi in dadka Soomaaliyeed ay u sinmaan wixii waxqabada ay dawladdu leedahay iskuulada loo tartamo askarta loo tartamo saraakiilnimada loo tartamo. Talyaaniguna intii ka horreysay wuxuu sameeyay kuwii u adeegaya Talyaaniga ka soo horjeeday gobonimada inuu meel walba ka buuxiyo. marka laba Soomaaliyeed ayaa soo baxaya koonfurta Soomaali soo raba Talyaaniga taageersan oo qabyaaladu ku milan tahay iyo Soomaali gobonimada taageersan oo ina qabyaaladu ku milnayn oo Israel ka mid ah. waqooyina sidaas si leeg bay ahayd inkastoo waxoogaa ka duunayd oon aad loo kala jabin. waxaa jirtay مثلا maxamuud loo oran jiray Uurdoox oo magaalada Burco ka dadkii ka aasaasay ahaa xisbigii SNL loo oran jiray inuu ahaa dadkii u filoobayay ee taageerayay in Talyaaniga laga kiciyo koonfurta. halkaa markii la isku yimiday ee dawladnimadii bilaabantay waxa la bilaabay meelaha ugu horreeyay ee la oranayo qof wala oo 18 jir baa cod buu leeyahay inuu codeeyo marka doorashadu timaado rag iyo dumarba. waxa jira wadamo kale oo adduunyada saddexaad oo waxaasi ka dhicin marka sinaan ayaa halkaa ka bilowday. waxbarashadaan waxaan ahaa dadkii markaa dawladnimadu dhaca soo timiday soo bilaabaya tartan ayaa loo geli jiray iskuulada oo dhan. tartan baa imtixaanada la geliyay kuwa ugu sarreeya ayaa la qaadan jiray ama baadiye ka kaalay daabiyad ka kaalay ama xawar ka kaalay qof ka qaadiyay muu jirin. marka waxa imanaysa aaminaad la aaminsan yahay dawladda inay meesha xaq ka jiro. mesela waxa imanaysa markii inqilaabka Hargeysa laga sameeyay in askartii inqilaabka sameysay inta xamar la soo taagay maxkamad la taagay maxkamadii inay tiri khalad baa ka dhacay sidoo ninka garyaqaanka dawladdu u doodiyo waa la sii daynaya. Cabdirashiid Cali Sarmaarka Allah yarxamahu ra'iisul wasaaraha Aadan Cabdulle waxay sameyn karayeen inay qaataan raacfaan qaataan maxkamadda sare geeyaan. waxay dhahan laba gobol baynu nahay oo isku yimid oo Soomaaliya waynu mideynaa hal loo dambi dhaafo kuwan. marka waxaad arkaysaa dareen caynkaas waxa kaloo jiray walaal markii la abuuray diyaaradihii Somali Airlines in imtixaan af Ingiriis lagu qaadayo oo wiiqaya dhinac markaad ka eegto dadka koonfurta Talyaaniga wax ku soo bartay inay ogolaadeen Aadan Cabdulle iyo Cabdirasaaq iyo dadkii madaxda ahaa oo dabadeedna tartan caadi la galay. imtixaanadu sidaa bay ahaan jireen laakiinse markii 67kii la dhaafay ayay bilaabmaysaa musuqmaasuqa wixii la oran jiray xoogiis walaal. doorashooyinkii 1967 iyo 1969 ayaa si weyn loogu dhaliilay maamuladii rayidka ahaa inay xakameyn kari waayeen musuqmaasuqii siyaasadeed iyo maamul xumada kale. musuqmaasuqa baahay waxa uu ka caraysiiyay dadweynaha oo doonaya isbedel.
maxamed cabdi yuusuf waxa uu hore u soo noqday ra-iisul wasaaraha soomaaliya muddo dheerna waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii hore waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta u soo joogtay xilligii ay soomaaliya xorriyadda qaadanaysay dowladdii lixdankii waxay labadii gobol oo midna talyaani gumaysan jiray midna ingiriiski oo midoobay oo xorriyaddii keenay marka waxay keeneen midnimo iyo gobonnimo mabda' fiicanna way keeneen laakiin ficilkii iyo waxay qabanaysay 9 sano oo ka dambeysay midnimada iyo gobonnimada qaladaad fara badan ciidan ka badan ayaa dalka ka dhacay waxay qabteen waa jirtay ugu dambeyntiina dhibaatada weyn waxay ahayd dagaal baankii doorashadii 69 oo shubasho ku dhacday oo dadkii doorteen inta badan aan soo noqonin meel balleegadu kusoo shubatay 123 xildhibaan oo baarlamaanka soo galeen cabdisaaq xaaji xuseen allahu naxariistay oo ahaa mataqaanaa xisbigii dabka ay u bixiyeen laakiin si democratic party ahaa keligiis ayaa ka soo galay 122 kale kulli meelay ahayd oo inta badan lagu soo shubto shacbigiisu soo dooran arrintaasuna marka waxay sii kordhisay qaladaadkii jiray iyo tabashadii faraha badnayd ay cidka kusii dhejisay dhibaato badanna way keentay ugu dambeyntiina waxay galaafatay madaxweynihii allahu naxariistay cabdirashiid cali shumaake oo la dilay 15 Oktoobar 1969 laasaxaaba midigii inkastoo afgembigu uu dhacay 21 Oktoobar 1969 haddana damaca madaxda ciidamadu waxa uu ahaa mid muddo soo jiitamayay Professor Cali Jimcaale waxa uu ka mid yahay qorayaasha taariikhda Soomaalida kuwa ugu horeeya si dhowna waxa uu la soo shaqeeyay madaxweynihii hore Maxamed Siyaad Barre oo uu turjumay buuggiisa marna intaad la sheekaysanaysay maskaxdiisa ma weydiisay sababtii afgembiga waddanka uu uga sameeyay marna ma ku sharaxay laba waxba afkiisan ka hayaa ma ogtahay allah u naxariistay waa midoo horta 67 yaan filayaa iyo 66 waxay ahayd ma hubo yaa wuxuu tagay Italia marka waxa waxbarasho u jooga allah u naxariistay Cabdiraxmaan Jaamac Barre Cabdiraxmaan wuxuu ku yiri sidoo noo sheegay madaxweynuhu runtii aan afkiisa uga hayo wuxuu yiri waxaan ku iri warnahaw isdiyaari waxa imaanaysa dawlad ummadda u shaqaysa kuwaanu meesha wax ka qaadayna waa mid horta tan labaad waxay ahayd hadal uu habeen igu yiri wuxuu yiri baahi cusub la siyaad oo markaasi duutaati ah qareenna ah yaan wuxuu yiri waxaan iska soo raacnay Baydhabo oo diyaarad aan isla soo raacnay waxaan ku yiri musuqmaasuqan waa dhamaanaya nin dhalinyaro ah tahay oo dhalinyaro ah oo aqoon leh marka waxaan ka codsanayaa inaadan ku biirin musuqmaasuqa hadda socda marka labadaasaad waxaad ka arkaysaa in uu runtii isu diyaarinaya ilaa iyo xadba waa sida anigu islaayahay ma ogtahay oo Cabdullaahina weli waa nool yahan filayaa maxaa yeelay markii madaxweynuhu noo sheegay aniga iyo guddiga ayaan waxaan tagnay beledweyne oo markaas Cabdullaahi yaa joogay isagoo wasiir ah dawladda Maxamed Siyaad ka isla su'aashaasaan weydiiyay Cabdullaahi wuxuu yiri wallahi waa runtiis diyaaradan isla soo raacnay duutaatiyan ahaa saasuuna igu yiri subaxnimadii ay ciidanku qabsadeen waxay dadweynaha u sheegeen isbeddelka la sameeyay waxayna sheegeen inuu yahay mid dalka looga badbaadinayo musuqmaasuqa iyo qabyaaladda waxay isla maalintaasi sharaxeen siyaasadooda arrimaha gudaha iyo tan dibadda galinkii dambe ee maalintaasi waxaa lagu dhawaaqay samaynta golihii sare ee kacaanka oo ka koobnaa 25 xubnood golahaasina waxaa magacooda ku hadlay taliyihii ciidamada Generaal Maxamed Siyaad Barre milatarigu waxay qarameeyeen shirkadihii iyo hay'ado kale oo dhaqaale oo kala duwan oo ay lahaayeen shisheeyuhu waxa kale oo ay ku dhawaaqeen nidaam ay ugu magac dareen hanti wadaagga cilmiga ku dhisan Soomaaliyana waxay ugu yeedheen waddan hanti wadaag ah mabda'a hanti wadaagga kacaanka ku dhisan miyuu aaminsanaa mise wax dadka uun lagu jeedinayo ama dadka wax soo jiidasho leh inuu la yimaado uun bay ahayd markuu kacaan ku dhashay dhinac horta haddaad fiiriso waxay ahayd marka aad fiiriso warqadii caddeed golihii sare ee kacaanku soo saareen 21 waa 6 maalmood kadib moogta markii inqilaabku dhacay warqadda markaad fiiriso waxyaabihii lagu soo saaray yani first charterka wixii ay lahaayeen of the revolution warqaddaas waxaad arkaysaa in ilaa iyo xad iyaga oo aan sheegayn hanti wadaag ahaana haddana
in muyuulku iyo tendensigu inuu halkaa jiray moogtahay. dhinaca kaleeto waxaan xusuustaa, waxaan jeclaan lahaa in mar kasta la kala saaro wixii kaftan ah uu qofka kugu yeeray madaxweynahoo kale iyo waxa aad arkayso oo siyaasaddii saameynaya oo ficil ahaan loo sameeyey. laakiin runtii waxaan xusuustaa habeen annaga oo meeshaa wada fadhina geedka hoostiisa ee madaxtooyada villa Soomaaliya yaa isagoo qoslaya iyo wuxuu yidhi companion dhihi jiray, wuxuu yidhi dad baa waxay u haystaan inaan hanti wadaag ahay. anigu maahayo, anigu waxaan ahay wixii ummaddan lagu wanaajin karo anna kursiga igu hayn kara. marka waxaan isleeyahay jawaabtaadu halkaasay ka soo baxaysaa. laakiin hadda waa qoslaayo ogow, isagoo qoslaayay ahayd ma ogta, marka inuu kaftamaayo iyo runtii ma sahlana. waa gartay. marka kaftankiisa markuu kaftamayo iyo markuu usan kaftamayn dhabta ka tahay ma la kala yaqaanay? waa mararka qaarkood waa kala aqoonaysay, laakiin dhibaatada waxay ahayd runtii sida qof kastoo dad badan oo madaxihi. maxamed siyaad wuxuu ahaa real qof complexa ma ogtahay oo yani tanaaqudaad badanna wata sida madaxda adduunka oo kaleeto. marka marmar waxaad arkaysaa isagoo kaftamaya haddana raba inuu adiga wax ku maqashiiyo ma ogtahay. bishii November 1976 madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre waxa uu saxeexay inay ciidanku galaan dhulkii Soomaali galbeed. waxay Soomaaliya dagaalkaasi ku jirtay tan iyo horaantii 1978 markaas oo ciidamada Soomaaliya dib looga soo riixay dhulkii ay ka qabsadeen ciidamada Itoobiya. siyaasiga Maxamed Cabdi Yuusuf waxa uu galka baarista u sheegay in dagaalkaasi uu ahaa qaladkii ugu weynaa ee xukuumadda Siyaad Barre ay samayso. waxa weeye horta wax kasta qof kastoo biniaadan qalad waa samaynaya, laakiin qaladka ugu weyn waxuu dhacay dagaalkii 77 markii la galay buu dhacay. dagaal wadaniya oo xaq u ahaa oo kamid ah shanta Soomaaliyeed hal xornimo beesha ku dhisnaa ayaa dagaal la galay. dagaalkaasna wuxuu noqday dagaal lagu degdegay oo loo bisnayn markaa iyada. sababtuna waxa weeye annaga kaliya ma aynan meel garin karin arrinta iyada. for example waxaan kuu sheegayaa 1976 intaan dagaalka lagu dhawaaqin Maxamed Siyaad rag buu usoo yeeray badan oo rag badan isugu jira. warqadaha lagu daafay xamar laleeyahay Maxamed Siyaad Barre ruushku ka baqahayaaye inuu dalka xoreeyo ma rabo. rag loo yeeray baan kamid ahaa jawharba markaan jawhar la iga yeeray oon madax ka ahaa. kolkaas ayaa maxaa yidhi warsaasaa la yeelay ka hadlanayo mataqaana arrintaas kala ka bixiyay. waa la hadlay dadka intiisa badan oo waxay yidhaaheen dagaalka la galo talaayaasoo dadkoo dhan waa kubaysanaa dalka la xaqay. maanta Itoobiya ciidankeena kaina ka xoog badan, laakiin waxaan lagu talagelin Itoobiya iyay ku tiirsan tahay, annagu sidaan ku tiirsannahay. for example gobonnimo doonka waxa taageeraya dalalkanti wadaagga dalalkanti gobolka gobonnimo waa kasoo horjeeda, laakiin dalalkanti wadaagga waxa ku shaqeynaya teoriyadii Lenin ama mabdii Lenin oo ahaa saddexda quwadood oo waqtiga xaadirka jooga oo xulufada ah oo kasoo horjeeda imberiyaaliyadda. kow dalalkanti wadaagga, labo shaqaale weynaha adduunka, saddex dhaqdhaqaaqyada gobondoonka. annagu marka tadriikada iyo diyaaraadka iyo madaafiicda iyo waxaan wadano iyo hubka iyo waxaan wadanada waxaan ku tiirsanay Soviet Union. Soviet Union waxay Itoobiya ka rabtay dalalkanti wadaagga inay ka dhigto. marka Itoobiya marka wax ku tiirsanay lambar 1 bay ku jirta, annaguna lambar 3 baan ku jirnay oo gobonnimo doona. sidaa daraaddeed markaan dagaalka galay kadib inaan joojino annagana hubkii laga joojiyey, ayagana waa hubeeyey. wastobaad iyo naasana marka la yidhahdo kuba iyo kulli waa keenay, iyaga buu keenay. ciidamadii waa lasoo jebshay. adduunka reer galbeedka wanaag gobonnimo ma taageeraan, shufta noo yaqaaneen. Itoobiya nagala jireen dadaan oo nama hubeyn wax nama qabanin. dagaalkii ciidanka soo jira dalka soo galay, dalkii markuu kusoo laabtay ciidamadii waa kala fidhadeen. shabaaka qabaa'il la aasaasay markaa. shabaaka qabaa'ilka la aasaasay kulli Itoobiya aaday oo la soo socday la soo duulay qarankiisa wax ka digay oo iyada calisilad ayuu horseedka ahaayeen. marka sidaas ayaa qaladka ugu weyn ku dhacay. dagaalkaa la galay dagaal xaq waa, laakiin lagu degdegay oo laga fiirsan ma garan. dhibaatada halkaasi ka tahay.
brofesor cali jimcaale waxa uu isbarbardhigga suugaanta ka dhigaa kulliyadda Queen's College ee jaamacadda City University ee magaalada New York. waxay ugu horreyn isbarteen Maxamed Siyaad Barre 1973 xilli uu ku jiray dugsiga Xalane. 6 sano kadibna waxa uu si rasmi ah u bilaabay inuu la shaqeeyo madaxweyne Maxamed Siyaad Barre. xilligaasi waxaa durba waddanka ka jiray jabhado hubaysan oo mucaarad ah, kuwaasi oo saldhigyo ku lahaa dalka Itoobiya. marna ma kuu sheego ma kuu qirtay qaladaadka uu sameeyey iyo kuwii ugu waaweynaa kuway ahayn? runtii qaldaad uu sheegay oo uu si cad u sheegay runtii horta ma jirin, laakiin waxyaabaha uu ka hadli jiraa waxay ahayd mar kasta. masalan wuxuu ku leeyahay war isagoo wasiirada iyo ka hadlaya maogtahay, wuxuu ku leeyahay war kuwii aan magacawnay laftoodii yaan xilkoodii ka soo baxayn maogtahay. misaal wuxuu habeen yaa waxaan xasuustaa wuxuu yidhi wuxuu ka soo noqday baaritaan uu ku tegay dekedda xamar berigaasi. marka magaalada waxaa jira beriga sokorwa, soomaalidana waa tan sokorta aada u qaadata maogtahay isticmaasha. meeshuu ka soo noqday wuxuu soo arkay sokor oo roob intuu ku da-ay halkaa ku khasaartay maogta, lagu khasaaray oo eber noqotay. marka wuxuu yidhi war bal fiiri, magaaladiina waa sokor la-aan, halkaasuna saasay sokorti ay ugu baaba'day. marka dadkii aan xilka u dhiibay yaa ka mas-uulahu yiri maogtahay, laakiin isagu ma dhihin anaa ka mas-uul, hadda ogow iyagaa ka mas-uulahu yiri maogtahay. kadib soo bixitaankii jabhadaha, musuqmaasuqii baahay iyo dagaaladii hubaysnaa oo ku sii xoogaystay gudaha waddanka, waxaa dowladdii Maxamed Siyaad Barre ay ka dhigtay mid daciif ah. bishii Janaayo 1991 dowladdaasi waa ay burburtay kadib markii ay magaalooyin waaweyn oo waddanka ah oo ay ku jirto caasimadda Muqdisho ay qabsadeen xoogag mucaarad ah. waxaa khubaro, siyaasiyiin iyo mujtamac kale oo Soomaaliyeedba ay ku tilmaameen xukuumadda Maxamed Siyaad Barre inay ahayd mid keli talis ah, macangeg ah, dhiig daadisay, isla markaana aysan waddanka u diyaarin deganaansho siyaasadeed. Maxamed Cabdi Yuusuf waxa uu xukuumaddaasi ka soo qabtay xilal kala duwan sida wasiirka howlaha guud, ciyaaraha, isgaarsiinta iyo boostada iyo xilal kale. isagoo shilin haysan 22 sano madaxweynaha dalka ka baxay. kuwa hadda jooga marka uu joogana maayin doolar intay dhacaan dhisanaya wax walba samaynayana dadkan qabyaalada isugu dhiiraya maxay wax ka sheegay oo rabo dambiga dalka ka galay khayaaladii inay isku ka sameeyaan. marka waxa weeye taariikhdu ayada iskari doonta tan la xaqiri doono wax ka imaan doono taariikh maxamed Barre waa ninka taariikh soo nooleeyay oo la baabashay yaa taaladii Axmed Gurey buu dhisay, kii Darawis buu dhisay, kii Dhagaxtuur buu dhisay, kii Sadextoonka Aswal buu dhisay, kii Xawsaar buu dhisay, dalkiisa soo buu dhisay. wax allaala wixii gobonnimadoon u dagaalamay oo dhintay biladii siiyey ku dawlad Aswal aasay biladii siiyay aabay Dhagaxtuur baa lagu dilay biladii aabay anigu siiyay maxay ka baxay. dawladii ku horeysay shahaadada hal qof mas'uul intii boqolaal qof ama kumanaan qof oo dhintay ama la dhaawacay ama la xiray oo dalka u soo halgamay hal shahaadada qof ay siiyaan mal. marka maxay taariikhdu soo nooleeyay ummadda waxay ahayd oo ay sameeyay. marka waxa la dagaalama ku taariikh duuga iyo isticmaalka la taqnaawi ama wali isticmaalka dadka iyo qabyaalada iyo qowmiyadda aan soo garanay. haddaba su'aalaha isweydiinta leh ayaa ah 30 sano kadib markii xilka laga tuuray Maxamed Siyaad Barre maxaa ugu wacan inay Soomaaliya degi weydo? sidoo kale 50 sano kadib markii xukunka uu qabtay militarigu wax miyaa laga saari karaa dhibaatooyinka weli ka jira Soomaaliya? Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa qodobkaasi sharaxaya. waxa weeyaan kow ta ugu horeysa Haaruunow waxaan lagu leeyahay wadaninimada ama af Ingiriiska lagu yiraahdo citizenship. Soomaalidu waxay u haystaa wadanigu hadda Soomaalidu ka hadashay inaad wadani tahay. tuugwana de xaq buu leeyahay in wadani yahay, laakiin uma dhaqmo sidii wadaniga ka dadka leynaya ko dumarka kursanaya uma dhaqmayaan wadaninimada sideedii. wadanimada marka laguma dhashay waa la bartaa marka labaad. marka waxa imanaya anigu waxaan xasuusanahay maalin anigoo 2 nin oo askar la socda xamar oo Jawhar baan u soconaa, waa markay soo dumasay waaye ayaa raggii askarta saraakiil sare ahaa ayaa abaaray reero Soomaaliyeed oo bari iyo waqooyi degan. marka intan sidaa u dhageystay baan ku yiri oo kaalaya ma waxay ku soo dhuratay in dad dan la kala reebi waayo oo calaamad lagu dhufto. marka haddaad reer hebel tahay waxa weeyaan abtirsiintaada ayaa sheegaysa siyaasadaadu waxay tahay. waa cunsuriyadda adduunka ugu weyn.
taas ayaan isleehay raadkay kaga tagtay soomaali waa ta maanta joogta ee noqotay inaan la odhan war yaa mabda' wadaaga soomaalinimo yaa wadaaga islaamnimo yaa wadaage laleeyahay reeraha loo kala fadhiisto reeruhu ha soo doortaan qofka masilaya marka waxa weeyaan kii ugu xumaa reerka iyo kii ugu wanaagsanaa reerka ayaa la simayaa marka taasina waxay keenaysaa inay adkaato wadaninimo iyo dowladnimo la ixtiraamayo inay dib soo noqoto walaal. bishii Janaayo 1995 Maxamed Siyaad Barre waxa uu ku geeriyooday magaalada Lagos ee dalka Nigeria, halkaasi oo masaafuris ugu noolaa tan iyo intii xilka laga tuuray. Professor Cali Jimcaale oo cilmiga suugaanta ka dhiga kulliyadda Queen's ee jaamacadda City University magaalada New York waxa uu sidoo kale ahaa qoraaga taariikhda Maxamed Siyaad Barre. waxa aan weydiiyey sida ay taariikhda u xusi doonto madaxweynihii hore Maxamed Siyaad Barre. kulley anigu waxaan isleeyahay dhibaatooyin badan oo dalka ka dhacay isagu mas'uul ku ah, dhibaatooyin badan oo runtii xataa haddii adigu samayn waxa sameeyey ciddii aad u magacaawday in ay maxay hayto waddanka ka arrimiso. dhinaca kale waxaan isleeyahay taariikhdu runtii waxay xusi doontaa markii runta la sheego مثلا abaarta daba dheer oo aan ka hadlay oo runtii Soomaalidu ay ku halaagmi lahayd haddii uusan jirin kacaankaasi markii runta la sheega ma ogtahay oo aysan ahayn weliba dad ay ii sheegeen anigii u soo taagnaa oo meesha joogay xerada markaan tagay waxa maalintii dhiman jiray wallahi alcadiim dadkina waa joogaan weli 50 qof ya maalin kasta dhiman jirta yani gurmadkii ummadda gacaanku u sameeyey waxay ahayd mid runtii cajiiba dan kastaba ha laga lahaado laakiin ficilkaas wuxuu ahaa ficil taariikhdu xusi doonto. waxaan isleeyahay مثلا qoristii af Soomaaliga oo kale Haaruno oo runtii muhiim ah waa wax taariikhdu ay xusi doonto. waxaan isleeyahay runtii markii runta la sheego waliba anigu haddaad weydiiso kacaanku goormuu kacaan ahaa waa 69 ilaa 75 wixii ka dambeeyay kacaan ma ahayn runtii. marka waxaan isleeyahay waa mixed bag waxa uu ka soo bixi doona ila tahay moogtahay macaan iyo qaraar runtii oo lianu wallahi waxaan xusuustaa maalinaan waxaan ku yiri kambaanyo idaacadan xamar waxa loo isticmaali karaa si wanaag uu ku jiro ummadana la isku dumi karo oo loo soo keeni karo moogtahay yani fursadii Maxamed Siyaad uu helay dawlad heshana kama horeyn kama dambeyn mana imaan doonto runta markii la sheego yani fursadii uu helay iyo cabsida ummadda gashay iyo Soomaalidu waa tii jirtay dawlad gacan dheer moogtahay runtii dawladdaas gacan dheereed. marka nasiib darrada ka dhacday waxay ahayd awooddaasi maxaad ku samaysay, awooddaasi seed u isticmaashay, awooddaasi ummadaanu maxaad ugu qabatay. weligii ma saadaaliyay dagaal diinada ka dhacaya waddanka ma dhahay weligii intaad u joogto adiga niyahow diinka ma hadal laakiin wuxuu ka hadlay waxay ahayd wuxuu habeen igu yiri runtii oo aan Allah u naxariisto waa dhintay laakiin wuxuu yiri meeshaan haddii anigu aan ka tago waxay u kala furfurmaysaa sidii tusbax go'ay laakiin asagu diinka ma hadlay wuxuu u arkayay qabiilku inuu ka xoog badan yahay diinta moogtahay. waa gad hadalka dad badan baa maqlay miyuu yiri oo dhabahan ma u yiri hadalka ma ana ugu yirka cid kale ku yiri waa goonideed laakiin taa aan ugu yiri ana marxaati ka goor ma ahayd waa 80 iyo in fact waa November 82 iyo October waxay ahayd maaqan laakiin waa 82 maxay ku timid sheekadu sheekada waxay ku timid wuxuu ka hadlayay waxa dhacday qolooyinkii SSDF-ta waa kuwan eriyooyinkan iyagoo ka soo duulaya ulasanti aan ka hadlaynay waa kuwan cabud waaqiya soo gelaya mararka qaarkood moogtahay waa kuwii gaalkacyo iyo lafteeda si xun dadku isugu dilayeen Soomaalida moogtahay oo yani qabiilkan ka hadlaya. marka waxay ahayd waqti duhur ah waa xusuustaa nin waxa yimid niyahow jalan ahaa moogtahay oo aan Maxamed Siyaad aysan isku hayb ahayn villaduu soo galay villadii niyahow markuu soo galay iyo baabuurka isagoo dhiganaya ya dhalinyaro xabad ku furtay
haddaba bila soomaaliya gudaheeda uga wado marka madaxweynaha soo kacay dhalinyaradii uu si xun u canaantay infact ninkii uu la hadlay waa markaas markuu ninka la hadlay kadib uu sheekada aniga ii gelaayo uu qabiilka ka hadlaayo iyo dhibaatada qabiilku uu keeni karo moogta iyo cawaaqibta la socota oo aanan laga fikerayn uu yiri sida dhalinyaradaas xabadda u furtoo kaleeto marka wuxuu yiri wallahi sida tusbax go ay noqonayaan hadda anigu meesha ka baxo ku dhowaad 30 sano oo waddanka ay ka soo jireen dagaallo sokeeye deganaansho la'aan iyo dagaallo diineed waxaa Soomaaliya ay xilligan ku jirtaa geedi socod ay ku dhisanayso dawlad wada hanata dalka oo dhan iyo kalsoonida shacabkeeda